socoto oo qurba aad maxay aheedo aad maxay aheedo taagantahay ka soo nacnaceenin marka حد بمال أدو يدو لغسي حسوستو عنين كستو أحيقو حجستا مواري حولا هاد ننكو أهيد يحيني باكو قربي مركي حرادو مرتا حلكو كواريغا حلكو كواريغا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آدي آدي السلام يا دمان dadka ku xiran YouTube kayga farxi laki walaashin farxi laki YouTube kayga daawanaysan waa isla farxi laki waxaan leeyahay habeen wanaagsan intii habeen wanaagsan intii maalin u taana maalin wanaagsan waayo Soomaalidu meelo badan ay joogtaa dadkuna way kala duwan yihiin waqtiyaduna sidoo kale yani meelaha kala joogo iyo waqtiyadu way kala duwan yihiin intaas ka bacdi caawa waxaan rabaa inaan ka hadlo barnaamij yani xasaasiya ayaantan wixii social media ka dhex taagnaa isku jawaabihii iyo maxay aheedo isla hadalkii turturkii fanaaniinta waxaan ka codsanayaa in ka dhamaantiin inay isi share gareysaan waxaan kaloo idin ka codsanayaa insha Allah taala inaad ila gareysaan qofkii ugu cusubna waxaan ka codsanayaa inuu subscribe kala dhaafin like iyo share iyo comment u reebo intaas ka bacdi waxaan caaw u soo galay intaan waa fiirsanayay kama aan hadlin mana rabin inaan ku degdego laakiin se waxaan leeyahay Soomaalida sideedaba si hadaad ugu fiiriso dad aan aqligoodu uu san dhameen waaye sababta aan taas u leeyahana madax walba oo timaado way mucaaradaan marka uu imaanayana way soo dhaweeyaan ma garan karo shalay qofkii aad jecleed maanta inaan nacdo oo kugu doqonnimo maanta haduu farmaajo tago bari mid kale uu imaado waa loo gurbaantumaya hal sano markuu kursiga uu haysto kadibna hadana waxa la leeyahay si soco waraa waqtigaada uu dhamaaday sheekadii Xasan Sheekh oo kaleete marka ma rabina siyaasadda ku dheeraado laakiin dadka qurbaha joogo horta Soomaaliya alxamdulillah rabbil caalamiin nabad iyo faal fiican hadirtaan aan xogaa heesanaa insha Allah ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu noo sii saacidiyo laakiin dadka qurbaha joogo dhibaato ku qabnaa dhibaatada ku qabnaa ayaa waxay tahay wadankeeni ayagu ka dagi waayay gaalada Mareykanka iyo maxay aheedo ingiriiska wadamada kale oo yani maalgelinta ku sameeya ama hubka Soomaalidu u qaybiyo isku soo diro oo maleeshiyad Soomaaliyeed waxyaalaha sameeyo waxaaba nooga daraba hadda qurbo joogtii ceerta qaadanaysi dibka aan ku qabno bilaadan wadankooda u geysto wadankooda dibka u geystaan bilaadan kale oo wadamo kale u dhasho u geysto ma jiraan taasina waa doqonnimo ku jirto warniyo adiga qurba joogtaa wadankaadi nabada ka dhacday inta aad ku farxi lahayd soo dhaweyn lahayd ayaa dab ku horinaysa qabiilada isku soo feenaysa madaxweyne haduu jiray haduu xun yahay haduu fiican yahay baad caynaysa dad badan oo aan baraarugsaneyn ku baraarujinaysa marka ani waxaan dhihi lahaa Soomaalida farmaajo asaga waqtigiisa iska dhamaaday insha Allah waqtigu socon lahaayna waa iska soo dhawaatay laakiinse dadka qurbaha jiro oo Soomaalida oo ceerta qaato aan rabin ceertooda inuu ka kala goodo because hadii wadankii nabad ay ka dhacdo oo la isku soo noqdo wadankaadi aan nabad noqday waxba kama jiraan orod noqaal leeyahay intaas ayuu diidan yahay marka waa inaan u baraarugsanaanaa mid hees soo qaado oo dadka ku horiyo alxamdulillah horta Soomaalida badankooda يعني عقلigoodu ma sha Allah waay laakiin se in xun oo qurbaha joogto oo qofkii tusayso inuu qofkaaneeto qabiil uu ku dhaqmaayo يعني qabiilnimo يعني wax walba la isku cunsuriyeenayo tusayna way jiraan wallahi ku soo galaya waa soo fariisanaya waa naag weyn waa nin weyn waa oday wax walba wuxuu waay waalid waaye wuxuu yahay aabbu yahay sadagu yahay waxa laga yaabaa qabiilada oo caayaayo ama qabiilada wax ka sheegayo inay gabadhiisa guursato ama wiilkiisa guursado hadana xishooda ma jirinba
aniga marka waxaan dhihi lahay kulay caawa ma aqaan waxaan yani sideedaba yani qiiradeyda kacsan because dad aanan qabow iskaga jiro oo ceer iska qaadanayo oo yani aanba ogeynba nolosha ka jirto Muqdisho ama Soomaaliya oo dhan iyo dadka maxay ahayd waxa ay ku nool yihiin ayaa dab nagu horinayo maanta haduu qaxdhaco wadanka burbur ka yimaado waxa jirto hooyo Soomaaliyeed oo aanan awoodin $10 ee gaarigii baska ceelasha ay ku geysanaysa ay ku kireysan leed siiba Muqdisho meesha ugu badan oo calaad laga horinayo waxa waaye Muqdisho ani waxaan kamid ahay hooyooyinka Soomaaliyeed waxa ii joogta caruur hadii maanta dagaal dhaco dhibkeyga waay ma awoodo in aan ordo meel walba oo Soomaaliya kamidana dab ayaa ka holcaayo waa isku mid because meel walba qabiilada is cunaayo oo Muqdisho joogo qabiilku doonama ka soo jeedo Soomaaliya oo dhan waa loo dhan yahay markii halkan la isku cuno gobolkii loo cararo kii halka kula dirirtay gobolkiisa ma tagi kartaa waa maya ma si dhex mari kartaa maya ileen waa maxay aheedo waa sidii bilaadanki Soomaali iskugu suubsan tahay wadada asiimareysa kii aad dishay ama walaalkiis disha ku sii degan maxaa sameynaysaa marka ani waxaan dhihi lahay intaad dadka u nacamleynaysaan Soomaalidu u gurbantumeysaan dadka qurbaha jooga oo live ka soo galay dadka daawanayo oo heblo soo dhawo wallahi ma sha Allah waa kugu raacsanahay saan waay loofkii bilada loo saaray hal laga daaya iska dhicin dadkan hadii aanan maxay ahayd la soo dhaweynin qabiilaadka ay nagu hurinayaan iyo waxyaalaha ay maxay ahayd Soomaalida dabka ay warxshidayaan aan lagu taageerin oo lagu soo dhaweynin warniyo waa qaldan tahay Soomaali waa Soomaali magaca Soomaali ayaa wadana ninka qabiil qalbigiisa ku jiro asaga ayay u taala aniga dagaal iyo colaad iyo dhibaato marabno tii Ilaahay ogaaya naga soo Ilaahay yaani oo hadarta naga soo saaro aan ka soo kabanay mid kale tana tabar uma heeno marka waxaad qabtid la qab meesha la joog hadii runka tahana aad rabtid to oo qurba aad maxay ahayd oo aad maxay ahayd taagantahay ka soo nacnaceenin marka Soomaalidana u tura masaakiina ku jiro waayeel ku jiro caruur ku jiro dad aan waxba haysanin oo ordi karin ku jiro waxa laga yaabaa 10 cunug inay islaan haysato 10 kina agoon haday doonaan yihiin wax la kaxeenay aysan jirin adinkana waxaad u gurbaantumeysaan inuu dagaal wadanka ka dhaco Ilaahay ayaa idinka magan galnay waxaan leeyahay shartii bilaayada la wareegaysiin Allah idinku celiyo fanaaniinta Soomaaliyeedna waxa lagu ogaay inay wax umada bilaad yaani umada Soomaaliyeed qalbiyadooda qaboojinayo ay soo qaadaan anigu cid aan taageero u ahay ma lahan ninka xun asaga xun Allah subhanahu wa ta'ala ayuu xisaabtiisa la hortagi doonaa iyo waxa uu sameystay laakiin waxa idin dhahayaa adinka dambiyada iyo waxyaalaha aad sameeynaysan ka fiirsada nin walba xisaab u dambeeyo qabri yara u dambeeyo waxa aad sameeynaysid ka fiirso Soomaali waxa dhada intaada falin ka fiirso waxa idin lahay iska day waxa sameeynaysiin maraba in hadal ku sii dheeraado waxa idin leeyahay dhamaantiin Soomaaliyeed ka iska qabta dadka cadawga cadawgu waa midka dadka qabiilada isku diro dawladda aniga ay doonay waxba igama galin ninkii dawladda farmaajo rabo ha u yimaado filla Soomaaliya degan tahay laakiin qabiilaadka isku dirinina dadka isdhex degan isguursaday walaalaha wiiliyas abtigiisa ha isku dirinina oo isku halaajinina intaas ay idin leeyahay waxa idin leeyahay waqtigu idin wacnaado aqliyuunina ha ahaado kor wabillahi tawfiiq